waxaan daawadayaal ku soo dhawaada qaybta afraad sheekadii cirbadii eel gareebtay. Sheekadan waxaa qoray Abdullaahi Saalax Axmed, waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Xaajirow. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar, gambaleelkan afro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada iyo sheekooyinka aan halkan ku soo bandhigno. Maanta qaybta afraad ee sheekada cirbadii eel gareebtay waxay ku bilaabanaysaa. Muddo ayaan kala aamusnayn oo qof walba uu islahay kan kala hadalka bilaabo. Nafta ayaan howlgal dheer u diray, maskaxdana wax badan daaliyay. Inta uu sheegayna mid aan u banbaxay hore waan ka xasuusan waayay. Sug ayaan la soo booday. Wuu naxay. Maxaa dhacay ayuu yiri. Cirbad ayaan iri. Ama kaag ayaa u sii kordhay. Cirbadii ayuu ugu celiyay. Waxaan u soo bilaabay shaqadeydii iyo isbitaalkan ka xoogsan jiray. reerkana biilka uga soo saari jiray. Nadiifiso mushaar fiican qaadata inaan ahaa ayaan u sheegay. Anigoo ilmeynaya ayaan xusuusta dib u celiyay. Maalintii aabahay aad ku xanuunsanaa in duhurkii hooyo ii sheegtay walwalkii iyo walbahaarkii aan ka qaaday maalintaas xanuunka aabba ayaan u soo bilaabay. Waxaa jiray baan ku iri cirbado dul saarnaa miis aan markaa nadiifinayay. Maskaxdayda oo guriga joogta aabbana ka walwalsan ayaa hawshii aan degdeg ku qabtay. Miiska oo cirbada saaran yihiin ayaan haabhaabtay. Daboolka haddaan is iri cirbada furkeedii yaraa gelina waan isdhaafiyay. Cirbadii ilaa lafta ay gaartay. Qolkii igu dhawaa oo aan markaa shaqo badan ka socon ayaan caawimaad weydiistay. Si fudud ayaa la ii daweeyay. Dhiiggiina loo joojiyay oo halkaa sharootay faashad la iga xiray. Halkaas ayaan jawaabtii ugu gaabiyay. Haa buu yiri. Waa taa haddaba halkaa laga raacay. Wax daaweyn ah oo ka hortag ah miyaad qaadatay? Naqas ayaan dibadda u soo tuuray. Cod dhiirana ku iri ma qaadan. waxaan ogaaday halka la iga raacay waxba soo kordhimayso. Yaan eersadaa ma isbitaalkii baan u tagaa oo aan iraahdaa cirbad aad leedihiin baan HIV ka qaaday. Yaase waxaa iga dhagaysanaya cidda doqonnimada u diyaarihi waayo. Maya diyaar uma tihid. Culays intaa ka badan ayaan naftayda kula xaashooday. Anigoo ka fakaraya ayuu iga naxsada dhakhtarkii. Adeer nasashad u baahan tahay, xaalkaaga oo dhan baan la socday. Xanuunkan waa lala noolaa karaa. Waa hadba sida aad ula tacaashid. Wixii daawo iyo taageero ah waa dhankayga ee adna yeelista ha laga helo. Isoo booqo sida ugu dhaqsiyaha badan si aan kuugu bilaabo dawooyinka. Wixii aad u baahan tahay ha igala xishoon ayuu yiri. Ayaamo kale oo mugdi ah ayaan ku sii jiray. Dunida oo dhan in la ii soo duubay oo firaashkayga oo kaliya uu ka harsan yahay ayaan u haystay. Minaaradda masjidka ii dhow oo igu beegnayd ayaan dhowr goor ka maqlay khudbado qiyaamaha ku saabsan. Aniguse in qiyaamahaygu horay u dhacay ayaan aaminsanaa. 3 toddobaad ma aana tagin isbitaalkii. Waxaan ka meeraysanayay daawada oo waxaan islahaa xanuunka kugu sii kordho si ay naftu horay kaaga baxdo. Intaba nafta ayaan ku maslaxaynayay. Subax ayaan si soo qasbay. Mucjisadu waxay tahay isbitaalka markan iridiisa marayay ayaan indhaha ku dhuftay 2 kalkaaliso oo hoos u hadlaya. Niyadda ayaan iska iri adiga ayay ku hadal hayaan. dareen aad u weyn ayaa ay galay. Waan sii naxay. Runtii cidda u sheegtayna waan garan waayay. Dadkan waxba kama qarsooman ayaan niyadda iska iri. Waa sheeko baraley iyo waxba kama jiraan. Sir baa la qariyaa. Dhakhtarkii dawooyin buu ii qoray. Noloshaydiina wuu kafaalo qaaday maadaama aan ka tagay shaqadii hore ee nadiifinta. Waxaan sidii ku noolaadaba warkaygu wuxuu gaaray xaafadan deganaa. Qurumaha u xil saaran warfaafinta ayaa baaristooda isku howlay. Takooris badan ayaa xaafadii aan kala kulmay. Naftaydiina dayac aan yarayn ayaa la soo gudboonaaday. Galab ayaan hor istaagay muraayad. Waxaan noqday qof labaad oo isbarasho isaga baahan. Naftaan waqti dheer daryeelkeeda ku lumin jiray. Maanta waa mid si walba u dacdaraysan. Sheekooyin badan oo bulshadu igu been abuuratay ayaan ka ledi waayay. Waxa ugu naxdin badnaa hooyaday waxay u dhimatay kadib markay ka naxday xanuunka helay iyo edeb darrada ay ku kacday. Waxaan isweydiiyay maanta hadday hooyo nooshahay maxay ku oran lahayd? Ma waxay ka jawaabi lahayd been abuurashada ay kugu hayaan bulshadu ee ah inaad xumaan aad samaysay aad ku qaaddo cudurkan? Xaafadii waan ka tagay oo mid aad uga duruqsan oo islaan habaryar igu beegan ay degan tahay ayaan u guuray. Cidla ayay ahayd. Meel koona ahna waa ku taalay. Dhaleecaynta inaan kaga dhunto ayaan u soo saansaday. Codka dugaagga ayaa isu bixi jiray habeenkii. Dhagaysiga codadkaas ayaan ka doorbidi jiray kan dadka.
mararka qaar waxaanba isku hawli jiray la sheekaysigooda iyagooni maqlayn. dhakhtarkiina dowladdu waxay ku wargelisay in degmo kale loo wareejiyey. sidaas ay noloshaydu u daalaadhacaysay tan iyo wakhtiga ilaa iminkana cid aan eersado ma garanayo. axmed aad buu u naxay, isbeddelkana wejigiisa ayaan ka dareemay. inta aan sheekaysanaynay ilimada ayuu dhabankiisa ka masaxayay. waa markii ugu horreysay ee aan dhakhtar oo ii arko. in muddo ah ayuu aamusnaa, kadib wuxuu yidhi, aad baan uga xumahay waxaa kugu dhacay. dhibta oo dhanna waan kula dareemayaa. waxaan hubaa inay tahay imtixaan lagu tijaabinayo sabirkaaga. waxaan diyaar u ahay wax kasta oo aad u baahatid inaan kula garab istaago, dhinacyo badan aan kaa saacido. inta markuu yidhi ayaa niyad sami i gashay. habdhaqankiisana aad buu u wanaagsanaa. sakootiin wanaagsan ayuu ii sameeyey. waan soo luuday ilaa xaafadaydii cidlada badnayd. wakhtigu waa cadowgayga koowaad, sidaan aaminsanahay. gaabintiisa uma baahnin. xawaaruhu igu dhaafi jiray ayaamahaygii farxadda. hadduu hadda u socon lahaa waan u mahadcelin lahaa. habeenkuba ha ugu darnaadee soo jeedkaas tirada badan ayuu wakhtigu ila yahay mid aad u gaabinaya. galabnimo ayaan axmed u imid isagoo dhoola caddaynaya, telefoonkana dhegta ku haya. ayuu ii ishaaray inaan fadhiisto. ujeedkaygu soo qaadashada dawooyin ayay ahayd. aragtidiisana waan u dhuumanayay. ilbiriqsiyo kadib telefoonkii ayuu dhigay, weji furanna igu soo dhoweeyey. xaalkayga ayuu warsaday. in aan fiicanahay waan u sheegay. kadib wuxuu yidhi, war farxad leh ayaan doonayaa inaan kula wadaago. berri waa meherkayga. waxaan jeclaystay inaan kuu sheego in habeen dambe xafladdu qabsoomi doonto. kasoo qaybgalkaagu waa muhiim. hookaarkan ayuu igu yidhi. ma qiyaasi karayo sida eryadaasi i damqiyeen. dhowr ilbiriqsi ayaan su'aalo aan tiro yarayn isku weydiiyey. waxaad dhigaysay maqayaali buu ahaa. maxaad filinaysay awal? hadda meherkan ma farxad baad ka heli ayaa is leedahay? miyuu kugu ciyaarayaa tolow? waxaas baan isweydiiyey. waxaanse foolkiisa ka arkaa inaanu kaftamayn. kaarkii ayaan ka qabsaday anoo dhoola caddayn u muujinaya. qalbigase holac igaga shidan yahay. nasiib darraday haysata ayaan garan la'ahay. su'aalaha nafteyda isku xeejisay jawaab la'aantooda ayaa wax walba iga daran. dunida 26 sano ee aan caafimaadka ku noolaa waxaa iga culays badan 7 bilood oo qadartu igu dhacday. wanaga intaas qaybtii afraad ee sheekadii cirbadii alka reebtay. intaan ku kulmi doonno qaybta 5aad. sidaas iyo nabadgelyo.